shisheeyo kale oo hadda kokoy sida Rwanda iyo Tanzania Soomaaliya waa Afrikaan sabab anaga marka ayaga ka diidana iyo macnaha wadankayna hadii iyo anaba wadan George jecelna inaan walka dhisano madaxna ina ka nagano jecelna sababta uu ka diidoyna oo wadankayna hadii macnaha ninil kooyo oo ganacsi ninil wado ama ninil dago ama iskuulaadka macnaha hata macalin la nagado meel walbo sababta anaga ka diidoyn ma ahay warbaahinta dadka Soomaaliyeed sida kuwa jilaada mar walbo hadii hadalaayaan hal eray oo ana mar walbo qalad in arawooya jar oo ayaga isticmaalayaan wana iska dhawaan dadka Soomaali jilaado dhan dad xun ma dad hunyan ka dhax jira sidii wadankan America oo kale oo dad cadaan may jira cadaanimada madaga marti wadanka Soomaaliya dad may ka dhax jira yani jinn arab ayagana madaga marti Afrikaan ba manas haysadan kaste dhammaan bulshooyinaysan salaami waa mar kale barnaamijka telefishinka Soomaaliya Bantu TV studio kiyaale ee dalka Mareykanka maanta may rabe in hadii Ilaahay raali ka nagado in anaga si la wadaago barnaamijyada caadiyan baka barnaamij jirteen telefishinka caalamiga SPTV ama Soomaaliya Bantu TV oo siinka sajeediyo anagoo ah Mukhtaar America studio weyn ee dalka Mareykanka barnaamijka anaga maanta siinka targalnaya may kamid ee daawadayaal siyaasadda Soomaaliya ee ka socota oo hadeertan waliba iska qabsiga ka socota ee baarlamaanka ee dalka Soomaaliya iyo doorashada dalka Soomaaliya oo eed mar walbo in wajiyo cusub ayada waldadoyti ya rabna ina maanta hal ila mina walka taabano dhammaan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walbo caalamka shal sugan waa jilaa ijireere may eed haboonte horta markii inku horeyta dadka Soomaaliya markii anaga barnaamijkan yani hor si gudagalno iyo rawada daawadayaal Soomaaliya markii la kalay wadanka Soomaaliya lehdameedi ilaa up to now ama maalintan hadeertan roogo ilaa ay hadda walba ka galday waayo wadanka Soomaaliya waa wadan run ahaantii dunida ama caalamka meel walbo eed magaashan ku weeri inkastoo luqadda Soomaaliya markii la ka dhahoyo oo aniga dhaxdayna dadka Soomaaliyeedna dhatayna oo midowninka dhax jira heshiis la'aan haysata may hadana haboonta in xaqiiqada dhabta ee mar walbo yaala in la xasuusiyo madaxweyne walbo dawladda Soomaaliya sokoro may lan baahiye in asay horta horumarka ee dalka in asaga eed in asaga ka qayb qaado may aragaasay hadda dawladda Soomaaliya markada fiirido maamul goboleedyo jiran ayadoo maamul goboleedyadaas ay too jiran ya ay isyo hata may hadalada barko ka dhigaasay warbaahinta sheegayta يعني إن أيجا دولة كامل بإن أيجا أيامبا وطنك الصوماليا اسم ذس ما يوي لك الدلالوية يعني إيدنا لنك وريرسنيا يعني دوات هذا مركا وطنك الصوماليا هاي ستة ما دولة أيا والسوق الإنجيلين ميا مثلا الشعب الصومالي هذا والسوق الإنجيلين ميا wadanka Soomaaliya may ka galdanye lehdameedii ka sabilaayo warkay ilaa ay maanta la roogo madaxweynaha hadeertan dalka talada hogaami doonaya malhubiyo dadka may dhooyana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way wasiisa nagade halka dadka gaar iyo qalna may leeyana dad kaliya macna kamid nagade barnaamijyo kala duwan yaanaga ka safakiini telefishinka Soomaaliya Bantu TV ayagoo kala noocayaan madaxweynayaashii horeysa xukuumeen dalka iyo kuwii hadda marka rabanba in ay xukuumaan anaga warman hayna nin walbo may haboonta in asaga saas aan hadalo markii hal ilamana ka taabado dhanka warbaahintana dadka warbaahinta Soomaaliyeed waa hadda dadkan marka dadka jiraada inta badan may eed yani hadaladiyo markii aad dhageysato ama yani baraha bulshada ka dhageysato may in akiyana odyo dhanba in hal nooc leeyahay
marka oo kale may badhaase wadanka Soomaaliya ay badumiyooye wariyaasha badumiyooyanba sababtoo ah dadkii wariyaashii may baka mashquulana siyaasadii wadanka ku mashquulan ayadoo marka habyo kala duwanna meel yaalan anaga aragoyna aniga horta hadii aniga dibadda ku noolno waxyaabo wadanka ka qaldan iyo hada dadkii dibadda roogan waxyaabaha qaladka iyo suubiyoon arago kornoon waayo hada warbaahinta may aragaas ninkii halkii qofooda macna 3 channel isla furode hegna warka lisgeliye intan warka lisgeliye intan halkii war leh marka asiga warka ka ganacsadooyba macna dawlad shuqul yaba ma bas kaste wadananimo ma baayaba waay warkan Soomaaliya yaala saalan tafatirooyo heedi eedlan gagadiyo sidii guus amal ama muufa amal dhinac walba lan gadgadiyo qof kala gadgadiyo ma jirto wariyaasha ama suxufinta lisaan wada gadgadiyo ayagoo waliba qaab qabiileys ahaan macnaan hadalaan waxaasna wala ka xishoodo may haboonte qofka bilaadan ama wariyaha hadii asaga ay wariyaha horta sidii waa nin askari amal way saas ina la socotan iyo haboonta markii ku horeeyay marka ninka askarigana may yani waajibka yani laf dhawarka wadanka way waa badbaadada wadanka way mayna haboonte in asaga mar walba wadanimada wadanka ka shaqeeyo hadii nin siyaasi oo qaab iyo yani faragelin iyo qaab dar iyo waxyaabaha sayto asaga ka arago may haboonte in asaga raboodka diyaariyo wixiina la wadaago caalamka laakiin wariyaalkan hadeertan oo boqolaalka channel isla shal furudeen halkii channel le meel walba ka shaqeeyaan oo halkii hadal le meel walba la ka fasiro hadan qaabkii mayle an hadalooyana yani hal madaxweyne waxaas la ka faa'iileyn askariga hal su'aal hadii la weydiiyo la dhaho doorashada soo mayle dhahay wadanka iyo socod adiga ay taageersan tahay la dhaho askariga may ka dhacay anaanba ma taageersan kastay وجوابتس تاسوي سبب هدي لدو أنا أسكري أي ما يشقدي أتى حدودك ودن كو إذا الأيام أنا شقدي أت ما حلوين يجي كوي إياه كي يعني كوين I don't care أسكري جوابتس تاسوي وريها نصيد أو كلوي ما أحكر وريها أنا ما ده وين هي ولا تحاجر سنيان صيد أو كلا مركا أسكري iyo may la dhahay wariyahaba shaqadiyo may ka shaqeeyna wadanka sidii usu ka nabadgal lahaay waayo markasta wadanka may way madaxweyne useeba kooye madaxweynihii hore bahe askariga boos la rooge hadii badato bedela la ku soo biye meel kale la bedele la sidii oo macna siyaasadda mar walba in isbedeloyto yani qaab walba in isbedelo nin shalay wasiirkii oo meel la dhahay dhaqaalaha ahaay geega wasiirka may nagaday aramaha gudaha baran may nagaday xildhibaan haduu xildhibaan nagado ku xunyo marka dib soo macaarada iska nagaday dadka noocaasayto dad siyaasi la ka tilmaamo kore wana dadka may hadii fiirido nin walba suudaas galadi taayas fiiridi madaxweynihi amalasan sharahi nin aqoon leeyahay iska tilmaamo isaas aqoontana macna shay ma in aad school la seeto macnaha graduate oo PhD la shahaado la qaadato la saas la aqoon aan ka soo aqoonta maylanka see qofka aqoonta asaga lay ina ku muuqnaato la baahan ma aha inta ana macna meel deero suuda galadeed dareere sidii rabi in dhagame sidii rabi in hadale waxa sayto wala ka shoodo siyaasad walbo كويتو ودنك الصومالية دلك ما كمشغولين ما كمشغولين يعني أفار الروغين يا وقتهم يعني ما يحبون تنين مدحوين هدين نقضوا إن أصير كمشغول تقالها ودنك إن صدق أو كلام معمول جولات أما هجامي معمول جولات ما يلنك باهني مش أصير هجامي كإن أصير كمشغوله عاصمتس إن أصير لسه ودنك دي بندس إن أصير كبقاله in asaga dadkii meel roogan shaqaala yani ka qayb qaado shaqo siyo dadkii shaqo awoor suubiyo ma ahinin iska qabsigan iyo waxyaabahan ayto la ka faylan run ahaantii barnaamijkayna badanya intaasna marka yani ina hor si gudu galo marabo laakiin ina soo ko waro balse laakiin hal su'aala marka
يعني رو بولشة إن أنا لو ذاقو وأيجنا سي يعني كالدوم مسكنتيو أنا كجرت أنا كحجرت إن أيجنا سنك جواب هل السؤال ولي باللامي كده سؤاله هل معها لامي كده ان سؤال عن دد ويديو أما مركا بولشة لو ذاقو يون فكرشون مركا سكتي بداية قرال سنك قرآن إلى حبونته وحياوها حقيقة إن لك هذا لو مركل كده هوي وان إيدي إذا حبونته فقوقنا معه حمامنا معه أنا مركي دتك الصوماليان أنا صوماليان دتك الصومالي ذا على ذا يلا ده وجلاء جريرته ودنك الصوماليا ما أنت أفرتس كونا أما أفرتس جيس دت صومالي شيء ذا ودقيني أيها جناح صدايان أيها حنوليان dad shisheeyo kale oo hada kokoy sida Rwanda iyo Tanzania ama dhinacaas Zimbabwe ama South Africa ama Kenya hada la fado iska dhee kooyan ganacsita maka inkastoo aanay wadanka Soomaaliya aan si toos meel walba san marna hadana saameyntiya dareemo kor waay nin Soomaaliyaan baa ilan wadanka ka dhaladii ogta dadkii macnaa ila degaayaan dabeecadiyo kase dhaqansho kase ilan ana bala dhaw Soomaa marka laakiin dadka Soomaaliya dhaladan ee anaba iska saqaado jeceliye wadan dado ina ana maal gashado guri ka dhisado siyaasado ina ana galo ina ana macnaha jaga fayla inkastoo madaxweynenimo naqadaynay mugo laakiin markii inki yarta يعني حلبان عمليو يعني محكمة ميلها سيئو iyo meelaha macna gadoomiyaha meelaha ee degmada iyo in ana kana naagado jeceliya sabab dadkan kale oo wadamada kale ayaga nin kooyaan oo anaga wadanka Soomaaliya waa qaarad Afrika kamid Soomaaliya waa Afrikaan sabab anaga marka ayaga ka diidana iyo macnaha wadankayna hadii iyo anaba wadan joor jecelna in aan walka dhisano madaxna ina ka nagano jecelna sababtu uu ka diidoyno oo wadankayna hadii macnaha ninil kooyo oo ganacsi ninil wado ama ninil dego ama iskuulaadka macnaha hata macalin ninka nagado meel walbo sababtu anaga ka diidoyn ma ahay su'aal markaas ay shacab in ay ka jawaabaan lan baahan way ma dad fiirliminka ate ما ميل داي يعني هنقول أنا كلينتاين ما أنا إنك رجعينه أو يعني أنا قبل نصارى ذكراني نينك أتى ما أنا شيء أنا كوريري تاس ميلان باين شعب كنا كجواب متكلي يا راومرك هنا سيلا وذاو وبرنامج كيكس ألف من ذاو ورباهين تتك سوماليات سدا قوة جلادة مرول بو هدي حضلاين هل إري أنا مرول بو قلت عروية جر أو أي استعمالين وانا اسكاوان ددك Soomaali jilacdo dhan dad xun ma dad hunyan ka dhaxjira sidii wadankan America oo kale oo dad cadaan may jire cadaanlamada madaga marti wadanka Soomaaliya dad may ka dhaxjira yani jinn arab ayagana madaga marti Afrikaan ba manas haysadan kaste laakiin iyo Afrikaan ayaa hadii aad dhabto ma ana Afrikaan ana ma ay baba taagan kaste wana wadanka Afrika ka dhaxnooli dadka noocaas oo kalmay haboonta dadka wadaniyada ayaan oo ka dhax jiraan wadanka Soomaaliya oo dadka noocaas in ay markii koreeyta la hadalan walna in sheegan walna fahansiyan dadka yaani macnaha madax maroyto oo jinn oo meel dhahay magac arab ahaan anaga aan iyo meelahaas iska jijeedna iyo dhahay waa ina la hadalan wariyaashana mar walbo ereygan ayaga isticmaalayaan dadka madowga ereyga sayto aniga may ila haboonte erey yani oo intoosanayna waayo nin madow aya nin kala madow munku weel koor hatta ka horna ina aniga barnaamijyo fara badan ka shal diyaarinaya jeceliya adiga may waa ninka wariyaha dhan la dhahooye aqoon-yahaminka yani laf dhabarka dalka Soomaaliyeed dhan atiya la dhahooye marka hadii ereyada adag ansaxnayna ويعني أذانا دتك أنت سوموادنين هذا كديسدويتو وهذا كان هالكس كلمة أنا يعني قش كدو وركنا هذا محشوديت ميا صوت أنا أساسا دهوي والكلامه
waddankan maraykanka markii aniga roogna may dhahaayana dadka madowga ee maraykanka ninkan in asiga midoow ay adab aragoyd in asiga wadama nin midoowin dhan meel kale ma kasoo jeeda ilan Asia ma kasoo jeeda Europe ma kasoo jeeda ama ma kasoo jeeda America haddii America koo inana sababa ku kooyan taasna xaqiiq way qoranta wan yaala wan iskoolaadka maraykanka laga baraday laakiin adigoo aragoyta ninkan in asiga Africa ku kooy bedelkii aad dhax lahayti nin African American oo dalkaas maraykanka dhaladi ya may dhahaase haweenay madowda eta ama nin madow hasii ahaato dadka Soomaalida kale oo macnaha oo yani waxyaabaha qaldan ayaga fahansiyan oo waa kuwa anaga sheegay dad faylan jira dad xun jira kaste aad iyo aad u xun wali ma ooshe way ka qaldanya dadka wadanka Kenya oo ayaga digayaan dadka Kenyaanta in ayaga dhahan afyo dhibakay ba ma baraban ina dhahan sababtiina ma fahamna ana hadii laakiin ninka Tanzania ka jeeda may dhahaan dadka Tanzaniyaanka hada ninka Uganda ka jeeda ninka Ugandese ka dhahaan why ninka Ugandese ka sabab ma Ugandese dadka adan dhahawayti dadka madowga dhahawayti madowga Ugandese still Uganda le maana wadankiyan ku weeroyd maroyta laakiin ninka Kenyaanka may dhaase dadka madowga oo macnaha Kenyaanka afka ba Kenya inaad afka samaro ba dhiba ku ay halka qaar yoona may badahayna dadka adoomeyda may waxa sayto hadda ku hor hataa yaa barnaamij kala nooc ay nooc ya ka diyaaranay marka walaalayaal hadii aad nin muslim lama aad sheegadaas ilaahayna ka absadaas ya may beel ay hadalka adaga naftarka ka hadalood isah markii kooti waayo hadalkaas adaga sheegayta dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ya wacdiyood walanka sheegayta maal siyaasi inkastoo hataa ulmada naftar iyo bagaaryo anka hadalayna aramaha sayto balse haddana haboonta in la ka hadalo qofkii markaas ilaahay uu hukumo ya ka hadalo karo labadaas ereyba oo la isticmaalo karo official ahaan la isticmaalo karo meela eeyana waa erey qaladan ana warbaahin magaca ma sheegaw laakiin inta badan warbaahinta magac Soomaali jilac ka baxaasa dhanba inta badan ereydaas isticmaaleen isla aragnay hadii beentay mudoytan kulliin daysadooytan inta qofooda daysadooytan waan ereydaas ay ka baara aragaasan haddii macnaha aqoontiyo wal yani dhameystirnayn iyo haddii doqon lama iyo kaat iyo haddii oo faquuq lama iyo kaat intaasay ba maylan baahanya in la xaqiijiyo marka walaalayaal barnaamijka heega ku sugunade waana aadi aada muhiim ah in aramaha xaqiiqda ama baxasaasiga oo tafaaruqda wadanka dadka dalka mustaqbalka bir insheenasa in la ka hadalo si ayada macnaha wadankan Soomaaliya wadamadan kale caalamka ka shaliyaalan asagana nagado waxyaabaha aan wadanka Soomaaliya oo horumar waysinya dhismooyinkan daafahan dhaadheer oo wadamadan kale nagada waysinya waxyaabaha amala kamid ay dadka wal dumiyooyba waa ki mar walba warka marka asiga safaafiyooy in anagoo dhan wadanka Soomaaliya si jeednana yani siyaasadda la ka mashquulno la ka faylan hadan wadad koona lan dhaafay dhamaadi wadankan Mareykan inta soo qoomiyada ku nool dadko dhan siyaasiya ma siyaasadda Mareykan ka mashquulsan yana taas doqon la milan kaste hadii nin kastaba macna ma isweeri madaxweyne meel ku dhoosi ma isweeri madaxweyne meel ku kufi ma isweeri waxaan la dimaanda dhan guro warka dhanba uro gali kolkan kaste hadda la ka faylan waxyaabaha sayto may haboonya yaqeen waxyaabaha xaqiiqda oo dhabta oo muhiimka in la ka hadalo إن شاء الله تعالى إن ما ينرجعنا دت كينا سوماليات جلا إجرير بميل البروان دت كي إسفهمي أو ودان شق دسري سيد مركا إن إلهي كيرونيا ودمدان كلا قارضها كلا أفريقيا إيو إيجي عرب إيو إلهي كيرونيا مريكان كبا نك كذي إلهي ورتعالى هنين كدكو خيرات أو ميل دهاي أو
يعني إلهي بمي بدأ كان معيسدي أو أنا بس نصارى قرآنية مالا والبولس كبقبوها يلالي أنا جنا أود أنا سكساردانا بمهاينا horta aqlaga anaga saka saaradaana Allah na siiyo loo ducay sidoo ka haboonta intii anaga meel dhaay maalin walbo baraha bulshada la barra ku guri lahayn barnaamijkaas ay meekay sidaytana telefishinka Soomaaliya Bantu TV studio ka yaal ee dalka Mareykanka ayna sii la socodsiiyaan wax muxtaar America. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.